قصة اسمك صبح حد الفساد قصة أنا كسوبي هتابع فاشون أو كجرت waxay kaloo sheegteen CAD oo shabaab raacdeysanayso in ay ka reebeen oo CAD naftirkeed ay qarxiyeen waa afar eedeysano dhammaantood soo gacan galay iyagoo dambiye argagixisnimo faraha kula jira waqti dheerna ka mid ah safka qawaariijta waana qayb ka mid ah shabakada loogu talagalay qalqalgelinta amniga caasimadda mid ayaa basaas ah halka saddexda kalena ay isugu daran tahay farsamaynta soo gelinta iyo dhigista qaraxyada goobaha ganacsiga dadweynuhu leeyihiin maxamed cabdulaahi cabdulle suldaan ayaa ka mid ah garabkii xisbul islaam ee gobolkiisu dhacay isagoona u digartay sanadkii 2012 kooxda qawaariijta waxaana shaqadiisu ay ahayd darawal qaada qawaariijta jabhadda gudoomiye aniga ururka shabaab waa kamid ahay darawal aan ahay aniga darawal waxaan ahay darawal xisbaa ahay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan kuntuwaarey xaladeeqa la dhahay taliyaha xisbada meesha oo degmada kuntuwaarey jooga waa ayaan gaari u wada darawal kaliya ayaan u ahay aniga degmada darkile laga soo xiray aweysa hore u aqaana isku xaafadaan ahayn sida degmada darkile waa asagoo ahayaan ogaay inuu shabaab la shaqeey jiray ayaan ka warqabay sanadii 2017 waxa uu hub ka soo qaadi jiray beerta Cali Mahdi isagoo geen jiray degmada Daynile xilliyada arbushaada lagu qaadayo fariisimaha ciidanka ee degmada Daynile 2021 waxa loo xareeyay waxay ku tilmaamaan dowra sharci ah taasoo loo xareynaya darawalada qaada qawaariijta isla waqtigaasi waxa loo dhibay gaari caasi ah isagoo shaqadiisa laga dhigay daabulida qawaariijta ku dhaawacanta dagaalada waxaana uu ka shaqeynayay deegaanada kala ah Ugunji Biibi Mubarak Gandershe Basro Sablaale iyo degmada Kunya Baro lama hamniga oo ka warayay dhaqdhaqaaqa eedeysana Suldaan ayaa gacanta ku dhigay habeen gobolkeedu uu soo indheeyay muuqaalna uu ka duubay xerada ciidamada booliis military ee deegaanka Jazeera sanad koowaad Suldaan la yiraahdaa 2007 hubraris way ugu jiray beerta Cali Mahdi iyo degmada Daynile inuu geeyay shaqo culus soo qabtay 2022 waxa loo xareeyay inuu wadane doori wax sharci ay u tilmaamaan in loo xareeyo isla waqtiga hadana gaari caasi loo dhiibay gaari filar loo dhiibay Ugunji uga shaqeeyay aniga Mubarak Gandarshe Basra Sablaal Kunibaaru waxyaabahaas jabhadaha waxay ugu tilmaamaan oo ciidanka jidgal ku sameeyay ayuu qaadi jiray sidiisa waa nin marka aad ka dareemaysaan waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah lacagta uu qaata xataa eedeysanahan mushaarahan wuxuu qaataa $310 waa kiiski ugu yaabka badnaa oo soo mar waay mushaarka ay qaataan qawaariijtu waa $30 iyo $40 ninkan way loo siiyay $310 waa nin culus waa nin khatar ah oo daabula dhaawac markuu dhaco wax markuu dhaco gurmad marka loo baahan yahay waxyaabahaas oo dhan sameeyo marka waxaan rabaa inuu gudoomiye muuqaalkan waa muuqaalka uu duubay xerada waa marka xerada bulshada military meeshaas ku taal xerada bulshada military xerada duuba waa xerada jasiiro ku taal waa dad meenis xerada caadi ugu aadina macnaha gaariga ma jidkana ma xerada caadi ugu aadina albaabkeeda iyo waxa ay tahay ayuu ku aadina caadi ugu aadina albaabkeeda waa ka xerada uu soo dhaweeyay hatay fiir naagtida u diro leeyahay naagtada ma xerada ciidanka ina joogto u sheegay waa may laamigana jooga ku filan tahay video kulaadis waa la gartaa laakiin video inaad wad maxaa keen hadaba mobile win awad call video kulaad kartaa ma aha marka waa istidlaaciye khatar ah waay maxamed cabdullaahi sheekada baralay oo meesha la imaado waa maana sheekada saxda waa xeraas inuu tuwaay qawaariijna u diray maxaa yeelay uu ka baxay uu ku laabtay waa ka baxay waa ku laabtay boqol mar ku laabtay macnaha soo faa marka oo faragalan saa la qabto muuqaalkan duubaay alla qabto ciidamada nasa ay qabteen eedeysana Aweys Cabdulle Cali oo afgarishidu tahay Shubka iyo Saciid 2017 ayuu isna ku biiray kooxda qawaariijta ah waxaana la baray basaasnimada waxa uu ka soo shaqeeyay isla shaqadaas 2019 waxaana horjoogo u ahaa Macalin Cabdulle isagoo markaas gudbin jiray xogaha dawladda ma yarkaan suuq ariga isku aragno suuq ariga ku bartay kan Saciid leeyahay suuq ariga ku bartay taas ma diidan laakiin aniga macnaha urur shabaab wuxuu ka tirsan guriga la degtay lama degin guri taas taana cadeeyo asaa sheegay ma ani guri qaraxa la guriga laga soo qaaday askale ku dhawaa shaqo maqlayno warkiis maqlayno waa maqla laakiin shaqo kuma leeyahay waxaan lahayn waa leeyahay ma dhigi karo waxaas ma baran guriga asig sidaas u sheegay kan wuxuu ninkaas iga horeey maali kurgee waa ninkaan waa aqaana guriga uu degan yahay dhahay waa soo naqana guriga igeeyeen alaaba guriga laga soo faagay hadda guriga magaalada Muqdisho kuma yaalo hadii agaaris aan tagaatay dad meesha deganay hadii agaaris aan hal maalin lagu arkaatay ana dambi dhan iska labo hadii hal maalin agaaris lagu arkay gurigaas uu sheegay ama aan si gala ama aan ku soo baxay arkay dambiga ana dush iska ana iska dambiga dhan eedeysana Aweys 2020 waxa loo wareejiyay qaybta kooxda dilalka dhagarta ka fulisa magaalada Muqdisho iyo qaraxyada lagu dhijiyo goobaha ay ku xiran yihiin kaamirooyinka
awees ayaana horjoogu ahaa eedeysanayaasha Siciid Xasan Isaaq Rooble oo loo garan ogyahay Diiriye iyo Cabdinaasir Cali Axmed oo isna afgarashadiisu ay tahay Cikrama. saddexdan ayaa ka wada qayb qaatay ku dhawaad 11 qarax oo lagu xasuuqay maati laguna burburiyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin shacab Soomaaliyeed. meeshan waa farmashiga ay sheegayaan laba dhagax waay saan waxa loogu baabiyay maxaa kaamiro xiranaysaa gawaaritu way soo guurtay say u socotay waxay maraysaa kaamiradu asaga amnigiisii tuugadu iskaga ilaalinayo qof qalab inuu ku anfac iska dhaaf say u xiran kartaa aniga wax baan dhigaleen wadadan meeshiisa la burburshay ninkan yaa burburshay waa saddexda eedeysano aweys horjoogu yahay ayaga afkooda ka sheegay hebelna way caawinaa dadku way fiirinay meeshan waa garoonku badeed waay dartooda loo xiray qawaaridta ayaa miina dhigtay oo ummadda ku baabi'iso ciyaartooyda yararka oo carruurta meesha ku baashaalayso isku mashquulinayso ku baabi'is aweesa horjoogu laba waxa ka Siciid saddexna waxa ka Cabdinaasir Cikrama asna waa nin qatar oo been badan waay oo marhabaabin badan waxaan afkiisa ka sheeg marka lagu howlgalnay wixii taariikhda oo sheegay saacadda oo sheegay meesha uu ka sheegay dukaankaas waa dukaan electronic waay waa uu gubtay alaabti iyo wixii ku jiro dhan ayagana sabab waay mid ugu dambeeyay la mid waay marka waxa kaaga daran meeshan Cabdinaasir goon u tahay waa laamiga dheer uu sheegay waa qaraxa ka dhacay bagaari booliis military ay qabsatay asaa dhiga Cabdinaasir dhiga cunugaas riiska ku geeriyooday sababna saa u asaa dilay gaariga saas u baabaay cunugaas dhiga daadanayo aad arkaysan asaga sabab u inuu qaraxaas uu ku dhinto mid ugu dambeeyay waxa ku dhaawacmay waa adeeryaasha daada ay jiraan mid ugu dambeeyay arag xoog uu bixiyay eedeysanaha koowaad ayaa suurtagelisay inuu soo gacan galo horjooga Awees Cabdulle Cali kaasoo isna laga helay xogta shabakad la shaqeyn jirtay iyo guriga ay ku farsameyn jireen qaraxyada oo ku yaala degmada Dharkeynle ee gobolka Banaadir kaasoo lagu soo qabtay eedeysana Siciid Xasan Isaaq miinooyin diyaarsan iyo bambaanooyin ninkan gurigiisa ma tagin dhoohay mar inuu guriga tagmo ogaa kara yaa inta laga ogaha se ku cadeey guriga inuu tagay hadee hadda artayne guriyaashii inaa taalaan ma ogi laakiin waxa lagu ogaana wax kastaba Ilaahay Subhanahu wa Ta'ala og laakiin gurigaas inaa degan yahay ana og markii la soo qabtay isagoo la wadaal ee keenay guriga ku jirta dhahay baawur yara wata isaga anakana saarifa saarneen guriga agtiisa lagu baakamay guriga ilinkiis kulay isaga soo tilmaamay sida ila tahay guriga meesha talaabada la qaaday oo darsaanka loogu dijinay meesha markii saad oo dhaa inta ugu baxaalay oo inta faag barti hada la faagin waxa ka soo baxay kulay gasa asma ka soo baxay isku saa gasa ana ka soo bixi hatta baafaashona ku jirto marka bacda maxaa ku jiro bacda weel oo waxa ku jiro bahashan oo badarka lagu shubto oo kululeysada ku jirto iyo wax fiilooyin maxay ku dhaheen maxaa waay adin maxaa ku aragtay meesha lagu soo waa feeday waan feeday u dhaw feeday wax madow oo adi shiiray waa ku jireen fiilooyin waa ku jireen eedeysanaha afraad Cikrama ayaa isna lagu qabtay isagoo wata qasac rinjiga oo minaysan iskana dhigaya caseeye taasoo uu damacsanayo inuu dhigo wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ciidamada NIS ayaa ka hortagay fashiliyana dhagartiisa sidoo kale kan waa telefoon kale kan waa battery loo yaqaano 9 voltage oo loogu talagalay ilaa isbuuc ama 2 isbuuc oo dabka haayo waa qayb kamid ah walxaha qarxa sidoo kale kan waa switch waxa loo yaqaanaa honest switch waa switch suurta gelinayo marka loogu talagala in uu qaraxdo waxa laga dhigaa on soo wuxuu ku shaqeeyaa fuse-kani switch-kani wax la yaqaano on iyo off haddii off laga dhigo on markii laga dhigo dhagar qabayaashu ay on ka dhigaan deetana wuu qarxayaa kan oo asaguna guluub ah ama labaadiin oo loogu talagalay meel kasta ama guri ha noqoto ama goob bannaan oo lagu samayn tago miinada ama lagu diyaari tago ay muhiim u tahay in uu kan yaalo si loogu tijaabiyo miinadaanu inay shaqaynayso iyo inaanay shaqaynayn sababtu waxay tahay ayada keligeed lama tijaabin karo oo waa fahmi kartaa oo lafiisa u baqayaa marka si dabkaanu inuu xiriirsan yahay iyo in kale uu ogaado wuxuu samaynayaa kan uu ku xiraa marka inuu qarxiyay uu ka soo qaadaa wuu shidmaa marka gulubkani wuu shidmaa markaas haddii uu gulubkani shidmo waa active dhammaan qalabkani waa taasaa markaan u gudubno
kuleysadan oo kale waxa ku jiro kuleysadan waxa ku jiro baaruud madow oo loo yaqaano homemade explosive ama baaruudda gacan ku samayska ah. baaruuddan waxay ka samaysan tahay waxyaabo badan oo la isku keenay. waxaa ka mid ah waxyaabaha loo yaqaano metallic fuels oo ah shidaalka ka yimaado. waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano garsaliin. waxaa ka mid ah aluminium oo si sharciga dalka kusoo galo laakiin marka isticmaalkiisa la bedelo wax kala noqonayo. waxaa ka mid ah uranium tan beeraha qudaarta marka la isticmaalayo loo isticmaalo. waxaasoo dhan marka la isku dardaro ayay waxay noqonayaan mid walba cabir loogu talagalay laga sameeyo la isku daro ayay waxaa ka soo baxayo wax loo yaqaano homemade explosive ama baaruudda gacan ku samaysaa. kalarkeeduna waa kana madowga. soo marka tan ninka watay ama gurigiisa laga soo qaaday ma ahan wixii caadiga ahaa oo dadka shacabka ay isticmaalayeen. waxa waaye wax loogu talagalay in naf lagu gooyo ama hanti lagu burburiyo. tani waa taas. sidoo kale isla gascan waxa ku jira waa homemade explosive waa baaruudda gacan ku samayska oo ah 80% mid ay isticmaalaan argagixisada oo gacan ku samayska ah. arrinta gaarka waxa waaye tan inta ugu badan wayna soo martaa ilaa iyo 5-6 case oo noocaana oo agabka noocaana ku jiro weelka noocaana ay u isticmaaleen waan aragnay. gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaa la yaab leh dhammaan xer ilaaliyo inta uu soo jeediyey oo shaqooyinka meelaha laga qabtay ay ka qabteen nimanka dhagarqabayaasha ah dhammaantood waa ka soo shaqaynay waana aragnay. marka baaruudda noocaani waa taasaa waa homemade explosive la yiraahdaa. noocaan waxay u adeegsadeen oo homemade explosive ta oo ah baaruudda gacanta lagu sameeyo oo ah noocaan madow oo loo yaqaano homemade explosive waa baaruud gacan ku samaysa. waxyaabo la isku dardaray sida dhuxusha sokorta fiyuulka waxyaabo noocaas oo suuqyada laga soo aruuriyo ayay ka sameeyeen. dheemish maaha marmar weyn macnaha dheemish way noqon kartaa laakiin farsamaday ku xiran tahay balse si caadi ah u falgashaa marka ay sameeyaan. wararka tirsan sirdoonka qaranka ayaa macluumaadkan la xiriira kiiskan ku biiriyay garsoorka maxkamadda ku-xigeenka xafiiska xidhaalinta ciidamada qalabka sida xeraaliye Cabdicasiis Cusmaan Cabdiyare ayaa codsaday in sanaha koowaad lagu xukumo xabsi daa'in halka saddexda eedeysano uu dalbaday in dil toogasho lagu xukumo. waa afarta eedeysane oo dhab ahaantii la qabtay ayagoo faragalan saa mid walbo waxay lagu qabtay ayaa meeshan ku soo bandhignay laama amniga ay ku soo qabteen. eedeysanaha koowaad waa eedeysanihii duubay xerada bulisiya military ee Jasiira. xeradaas in la duubo sharciga muxuu ka qabaa? sharci waxbuu ka dhigayaa xerooyinka ciidanka la duubo maahan. qodobka 6 faqradiisa labaad uu ku dhacay. qodobka 6 faqradiisa labaad maxay leedahay? ka mid noqosho urur argagixiso ama daacisha ama qawaariidta shabaab ha noqdaan. marka aad ka mid noqoto qodobkaas wuxuu dhigayaa 15 sano in lagu xukumo. ka mid noqosho bis waay tababar ma qaadan. marka tababar qaadatay wuxuu dhigayaa 15 kale dhigayaa 15aadne waa shirqool iyo abaabul dambi waay ma dhacay. wuxuu sameeyay xerada bulisiya military oo duubay in xero la duubo oo xeradaas in la weerar laga shaqeeyo shirqool iyo abaabul dambi kawi ma jiro mid gudoomiye ma jiro. ka qayb qaadasho dambi 18aad tilmaamayo oo fal argagixisa ka qayb qaadasho ma dhacday. way dhacday maxamed cabdullaahi sameeyay wuxuu sameeyay inuu duubo xeradaas una diray qawaariidta. 21aad dhacday oo ah gacan siina dhacday mid gudoomiye iyo basaasnimo oo qodobka 25aad. intaas marka la isku koobo qodobadaas waxay dhigayaan mid walba waxba ku xusan mid walba gooni waxa ugu xusan sanadaha ku xusan. mudugada marka la isku koobo waxyaabahaas marka waxaan codsanayna qodobadaas waxay sheegayaan mid walba waxbuu dhigayaa. 6aad wuxuu dhigayaa iyo faqradiis 15 sano 15aad waxbuu dhigayaa 18aad waxbuu dhigayaa. inta la isku dardaro ee maxkamadda qodobadaas ay ku xukunto sanad mid walba aan ku soo eedeynay waa wax uu geystay waa shabaab ka mid noqday tababar uu qaatay 15aad shirqool abaabul dambi waa dhacay maxay yahay xeradii uu sawiraba waana diray 18aad ka qayb qaadasho waa dhacday uu sawiray in la sawiraba dambi qodobadaas tee fiiris maxkamadda
sideeta inay ugu xukunto eedaysanaha koowaad maxamed cabdullaahi cabdulle cawaale suldaan oo asaga qiraal leh intaas asaga qiraal leh marag muujintuna soo bandhigin eedaysanaha labaad aways cabdalla cali shubka saciid loo yaqaano iyo siciid xasan isaaq roble diiriye loo yaqaano iyo eedaysane cabdinaasir cali axmed cikrama saddexdan eedaysanaha koowaad waa ka daran yihiin waana ka khatar badan yihiin maxaa caddeehaayo waxaa lagu qabtay ayaga waxyaabaha qarxa ee lagu qabtay ma qarxeen noo gudoomiye haa way qarxeen waxay sheegteen balaagsi inay qarxiyeen waxay sheegteen laamiga dheer inay bulshada military ku qarxiyeen dadna ay ku leedeen CAD oo shabaab raacdeysanayso inay ayaga ka reebeen oo CAD naftirkeed ay qarxiyeen noo gudoomiye waxay kaloo sheegteen inay qarxiyeen ciidan bangalo u socday ciidan haanta dheer maraayo oo nisa ka tirsan waxay kaloo sheegeen guryo badan inay qarxiyeen oo mas'uuliyiin ay degan yihiin noo gudoomiye marka qarax qodobada aan ku soo eedeen markay wax ka dhashaan qodobka lixaad faqradiis labaad oo kale shabaab way yihiin tababarna waa qaateen toddobaad muxuu leeyahay heesasho hub waay sideedaad muxuu leeyahay isticmaal hub walxaha qarax ma isticmaaleen haanta dheer la qarxiyey askara lagu qarxiyey waxaa soo bandhignay wiil saqiira oo dhintay iyo ciidan bulshada military ah oo la qarxiyey waxaana qarxiyey eedeysanayaashan saddexda ah ayagoo iska kaashaday keenteeda ku dhijisteeda iyo dhigiddeeda iyo rumuud ku taabashadeeda ma dhacdo marka isticmaal waa la isticmaalaa waxaa la sheegay meeshaan ay qiraal ay yihiin 19 qarax oo magaaladan ka dhacday inay ay geysteen ay qiraal yihiin 15aad ma dhacdo waa dhaceen saddexdood waxay shirka ku yihiin oo ninku ugu weyn uu yahay oo joogood uu yahay aways inay ummadda baabaashaan qarxiyaan waxyaabaha aragteen oo hadda qabiilka markuu sharaxayo ay wadnaha u banaanku imaanaya maxaa yeelay waxyaabaha qaabka la isku xirxiraya waxyaabahan caadi ah ummadda masaakiinta oo jirkooda aan loogu talagelin ayay gubeen dukaanka arso u gubtay bajaajta arag dadka saarnaysay u gubteen waxyaabaha soo dhanay sameeyay mid gudoomiye 18aad dhacday ka qayb qaadasha dhacday maxaa yeelay mid walba oo kamid ah keene sameeyay caawi ayaga sheegay oo qaraar ku sheegeen laatii kuwaadna waa dhacday marka qodobadan marka waxyaabaha la sameeyay ee ka dhashaan waxyaabo qarxi la sameeyo kale ee ka dhashaan dhimasho kale ee ka dhalato iyo burbur ee ka dhalato waxay sheegayaan in dil toogasho lagu xukumo marka waxaan codsaneynaa saddexdoodaba in dil toogasho lagu xukumo maxkamadda waa maasanta abukaati caarif oo qarankeeda sanaasho u doodayay ayaa isna maxkamadda codsigiisa u jeediyay waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdullaahi cabdulle cawaale wadana gudoomiye asal ahaan inuu shabaab soo maray oo shabaab ahaa asaaba qiraal la ah laakiin waxaan ka difaacayaa oo xafiiska xeeraanta ku soo eediyo dheeraadka ah oo xafiiska xeeraanta ku soo eedeeyay inuu istidlaac yahay TV-ga halkaan laga tusayay asagoo horta wuxuu ku sheegay duubista anu shabaabna waxuma duubayn shabaabna waa ka soo tegey shuqulna kuma lahayn waa kala tagnay uu maxkamadda horteeda ka sheegay baari hore u sheegay garsoori hore u sheegay shabaab iyo asaga xiriir kama dhaxayn halkaan markaan weydiinay baarahane wuxuu sheegay February in mushaar loogu soo dir u dambeysay waxa daliil halkaas ka ah 10 biloodba inay kala maqan yihiin oo kala asaga shabaab kala go'een wax tusaalinaya in duubis suu ku sheegay oo ku fasiray meeshaan mareynay buu yiri darbi una waana la tusay waan arkaynay wax tusaaleynaya inuu shabaab la xiriiray oo xiriir shabaab la leeyahay maxkamadda horteeda laga macadayn tii hore oo asagu shabaabnimadiis hore uu ahaa mooyaan taas waa qiraal la ah marka maadaama qiraal uu soo ahayn wax tusaaleynaya cadeynaya inuu shabaab xiriir la leeyahay oo istidlaac u ahaa oo san jirinin qodobada xafiiska xeeraanta uu ku soo eedeeyay oo ah 15 21 25 inta midna ma jirto waxa maxkamadda sharafta ka codsanayaa in ay ku weydo eeda istidlaaca iyo mukhaabaraadka oo uu sheegay oo eedaas xeeraarintu maxkamadda ay ku weydo maadaama shabaab uu ka soo tagay horna uu shabaab u ahaa hay'adaha sharcigan uu soo marinin waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa in uu fiiriso qodobka 42 faqradiisa koowaad xarafka fa oo tilmaamaya in dambigaas hore uu galay uuna ka yimid uusan dhaqan celinta uu marinin in loo fududeeyo oo aan ciqaab cusleeya lagu dhifo maadaama had in badan uu xiran yahay
sanaha labaad Aways Cabdulle Cali inuu shabaab qiraal maxkamadda horteeda waa inkiray fadhiga hadda jalsada la fadhiyo wala qiray hadda maxkamadda horteeda wuxuu ka sheegay inuu shabaab ahay shabaabna ula shaqeyn maxkamadda inay ku weydo asagana sidoo kale Saciid Xasan Isaaq Rooble asna inuu shabaab la shaqeeyo ma qiran sidoo kale Cabdinaasir Cali Axmed fadhigan jalsada shabaab kama aysan qiran mina maxkamadda soo taxgelinin qiraalkaas maxkamaddu ay ku weydo xorriyadiina dib u celiso maxkamaddu waa maasanta waxa way maxkamadda sharafta leh gaaraan Xasan waxaan ka codsanayaa in dhalinyaro ah maadaama aan ahay mustaqbal iyo rajo leh xal iyo ma aan xabsi inaan ku jiro dadkeygana aan la noolaado aan codsanaa tan kalena waxaa codsanaa inaan nadee wali maxkamadda sharafta leh waxay ayada nagu hukunto ama nagu anaanatana aan qaadaha waxaan codsanaa maxkamadda inay xorriyadda siiso gaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana fadhigan soo xiray Cabdi Fataax Khiyaar warbaahinta qaranka Muqdisho